xog xasaasi ah ayaa muujinaysa in saamigii uu lumiyey Abiy Ahmed taasi oo uu ku lahaa dekedda Soomaaliyeed ee Berbera. dowladda Itoobiya ayaa xog la ogaaday waxay sheegaysaa inay lumisay saamigii ay ku lahayd dekedda Berbera ee Somaliland kadib arrimo horay la isugu afgartay oo dhaqan geli waayay, waxaana qayb ka ahaa heshiiskan Imaaraadka Carabta. Tallaabadan ayaa la rumaysan yahay in culays ay ku noqon karto xukuumadda Addis Ababa marka loo eego hamigooda ku aadana inay ka faa'iidaystaan saamigii 12% ahaa ee markaasi ay ku lahaayeen dekedda Berbera. Itoobiya oo aan lahayn bad iyo deked ayaa waxa ay muddooyinkanba aad uga fakaraysay sidii ay qayb ka mid ah Soomaaliya u maalgashan lahayd dekedo, waxaana la aaminsan yahay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in heshiis noocaas oo kale ah uu la galay, inkastoo baarlamaanka laga qariyay. dowladda Itoobiya ayaa lumisay saamigii ay ku lahayd dekedda Berbera ee Somaliland kadib markii ay buuxin weyday shuruudihii saamiga ee looga baahnaa, sida warbaahinta dalka Itoobiya uu sheegay wasiirka maaliyadda Somaliland Dr. Sacad Cali Shire. Itoobiya ayaa saamidan 19% ku lahayd marsada Berbera halka DP World ay ku lahayd 51%. sidoo kale Somaliland waxay ku lahayd 30%. hasaatee Itoobiya haatan wax saami ah kuma yeelan karto dekedda Berbera maadaama ay kasoo bixi weysay shuruudihii la hordhigay, ayuu yidhi wasiirka, isagoo sheegay in tani ay la micno tahay saamiga inay kusoo hareen Itoobiya iyo Somaliland oo markaasi saaxiibo ah, laakiin Somaliland ay daaqada ka saartay Itoobiya balse Imaaraadka oo kaliya uu ku soo haray saamigaasi.